بسم الله الرحمن الرحيم وإن السلام يا مدة نشوفنا حوله هو إسقاط سودان وقرشة دشاس الرضا لما كل يسقى عليه طبعا يا لما كل لبعثنا يا أفر وحين نوقف صابينا وأربع إسقاط عدد وحين نوصل عنا هذا قعدنا نكوهنا قرشة لجان أو محياته أن يكسرنا أنا وشراه wasiir deegaanka taleex oo ka mid ah deegaanada Sool iyo Sanaag oo khaasatan wasiirada ka soo jeedo yayn shalay waxa gaaray xubno ka mid ah Soomaaliland arintaas ma ka waraysan waa ka warhaynaa waxa gaaray degmada taleex Salmaan Yuusuf Ali Koore oo ka soo jeeda deegaanka waliba waa xaafadiisa isaga gaar ahaan waa la soconaa qofkuna inuu meeshiisii yimaado iyo xaafadiisii wax badan oo diidi kara ma aan jiraan waana arkaya isagoo xoogaa inama ah oo maleeshiyada aan maray qoyskiisa yihiin xoogaa sawir lagu qabanayo leeyahay waa ciidankii Puntland umar akayn ciidan xitaa wadiba waa arkiseen waxaan isaga leenahay Salmaan waa imanaysa xaafadaada cidina ku diidi mayso laakiin agtana aan lagu badin deegaankaasna mar hore dhibi ka raacday arrimo siyaasada waxaan rajaynayaa inuusan taasna isa maanta diyaar u ahayn dadka deegaankana diyaar u ahayn hadda wax badan oo inta dhaafsiisan kuma oranaya laakiin agtan ayuu nagu badin yuusan siyaasadeyn maxay hayto dadka meesha degan oo dhib u keenin meel la qabsan mayno iyo sheekadaasina hadda maanta meel ay taalo ma jirto xaaladooda waa ognahay Somaliland meeshii la oran jiray xaalkeeda qof waliba ka warhaya maanta meel qabsan karaan iyo in la qabsado iyaga mooji ma jirto marka ha isku kay dhaqdhaqaajinina xaafadiisina dib ha ka laabto meeshaas waxaan jeclahay inay la socon soo dhaafin wasiir ma waxaad beeninaysaa ciidamada Salmaan Ali Koore ee Puntland ka tirsan yihiin oo nagu soo wareegay waxaasi wax jira maaha ciidan Puntland ma wareego meesha maanta Salmaan geenayo dhowr iyo 10 wiil oo qoyskiisa oo maleeshiyada oo meesha ku wariyeen iyaga kala yaacay u geen karaa Salmaan Ali Koore wuxuu sheegay shirkadda shirkadda ku sheegay inaanay xataa siyaasiyiinta Puntland joogay deegaanka uu ka soo jeeday isagoo aad ka mid tahay ka soo jeeda inaanay xataa hadli karin oo sida uu sheegay inay iyagu Hargeysa markii joogaan ay hadlaan oo hanjabaan laakiin idu ka hadli karin arintaas ma beenin anagu haddaan hadalno xikmad baan ku hadalnaa iskama hadalno iyagu waxay doonaan ku hadleen anagu marka aan afka kala qaadno waxbaan sheegaynaa macna samayn kara laakiin de waxaan had lahayn ma wada tirsan karo intaas ka baxaya taas hadda waxaad noo sheegtay intii aan waraysiga diyaarinay inaad doonayso inaad arrimo kale ka hadasho oo dabcan ay ka mid tahay inaad la hadasho dadka Puntland maxaa ku soo beegay inaad si khaas ah dadka Puntland ula hadasho waxaan ula hadli lahaa wali waxa ii muuqda shakhsiyan dadka Puntland ku dhaqan qaarkood inayan fahamin ama ayan rabin inay fahmaan barnaamijka iyo siyaasadda xukuumadda uu hogaamiyo maxayto madaxweyne Saciid Cabdilaahi Deni oo ku saabsan waliba arrimaha ku saabsan siyaasadda ku saabsan maxayto horumarinta dhaqaalaha iyo sida loo maamulo maxayto dakhliga soo gala waddanka saddexda qodob inaan dadku wali qaar rabin inay fahmaan baa ay muuqda madaxweynaha kan wuxuu ku yiri sidii loo maamuli jiray Puntland waxbaan ka bedelaya sidii hore ma shaqaynayso aniguna ku shaqayn maayo waxa dadka garan laayihiin siyaasadda madaxweynaha loo doortay iyo ku xigeen iyaga barnaamijka siyaasadda iska leh xiriirka cid ay la sameynayaan iyo cid ay heshiis la galayaan iyo dawladda dhexe ay ula macaamilayaan arrimaha waxa iska leh dawladda iska leh inay uga dambeeyaan taas khasab bay horta noqonaysaa kow isaga og arrimaha danta u ah Puntland isagana loo doortay isagana lagu xisaabtamaya cid shacab oo meel joogta lagu xisaabtamaayo isagana uga aqoon badan qof walba isagana ku og isagana uga xisaabtan badan danta Puntland isaga og reer Puntland isaga mas'uuliyadeeda haya madaxweynaha barnaamijkiisa siyaasadeed ee ku aadan dawladda dhexe sidoo la macaamilayo iyo dawladaha uu wax la qabsanayo heshiisyada la gelayo hal laga daayo anjarafaynta iyo hadalka xun
taasi waa qaybta xagga siyaasadda. qaybta horumarinta dhaqaalaha madaxweynahan wuxuu yidhi xagga infrastructure marka la eego innagu dhaqaale aan wax ku maalgashanno oo jidad ku samaysano ama ku samaysano muxuu ahaa airboordo ama dekada ku samaysano inagu ma haysano. cid maalgelisaan raadinaya heshiisna waan la gelayaa wixii yaala dhaqaalahooday gashanayaan inana waynu manaafacadsanaynaa waxaa inoo haraya hantiduna inaga inoo haraysaa. adeerow arrimahaas ha looga dambeeyay madaxweynaha canjarafaynta iyo hadalka xunna ha la iska daayo. gobolada Puntland waxaa ugu dib dhacsan oo ugu xun goboladan waan ka soo jeedo. weli 12 sanadood kelmadaha aan ka maqlayay Puntland gobolada qaarkeed weli xitaa kuwaas weligood ma ay oran afkooda taas kama soo bixin. dal baa nala ka iibsanayaa afkooda kama soo bixin wax kale ha yiraahdeen. arrimaha ku saabsan dakhliga iyo dhaqaalaha haddii si kale loo maamuli jiray madaxweynaha wuxuu yiri danti inta ina ka dhaxaysa baan ku maamulayaa wixii soo gala. qof shakhsi iyo jifo iyo qabiil iyo oday aan gaar wax u siinayaa ma jiro. mushaharkaan ku bixinayaa hawlaha dawliga baan ku bixinayaa. weli intaas dadka qaar ba istiidsiinaya meeshay arrimuhu kaga socdaanna waa fahmayna. arrimaha reer Puntland aqliga dib hay isugu celiyeen haka tanaasuleen arrimaha. wasiir halka aad la socotay arrimahan kaga socdaan ma cadeyn karaysaa? waa la ogyahay dowladda dhexe nimanka isku magacaaba nolol iyo maxay ahayd wixii dib bay ka wadaan gobolada. taas waa cadaan. wax khaldan baa dadka loo sheegayaa wax khaldan baa la gelinayaa odayaasha waxbaa la siraya. reer Puntland iska ilaaliya sida tan uma aydan shaqayn jirin laakiin sanadka waxba in ka waaran. wasiir wala oran karaa dadkii waxaad u diidaysaa inay xorriyatul qowlka inay dadkii hadlaan inkoo markaas uga dhigaya ama difaac ka dhigaya in ay dowladda dhexe la shaqeynayaan. maya madaxweynuhu ma oran in dowladda dhexe ma rabo lana shaqayn maayo ma oran laakiin xisaabtanka iyo gorgortanka iyo meesha la iska tooganaya isaga iyo waxa la isku hayo xagga waxaa maxaa xorriyatul qowlka dadku way hadli karaan taa ciidamadiisu cabashana waa la qaban karaa. dalka sida loo hogaaminayo talo waa ka soo bixin karaa laakiin channels iyo dhul ay marto iyo say martay u leedahay lama ogolaan karo qof yiraahda madaxweyne dhul iga iibsanaya muxuu ka rabaya airport iga iibsanaya ama dekada iga iibsanaya maxay tahay arrintaas. waa nin ganacsada lacag inay kama baahna. mashruucyada qaybtood fadhiid bay ku sheegaan dadku waana rumaantiya dekada oo kale 3 sano ayay maraysaa sanad ayay lagu dhameeyo matamiya diidaysa. madaxweyne mas'uul wuxuu ka yahay intii isugu xilka u hayay intii hore mas'uul kama aha waan ognahay waa runta. taasina meel bay maxay qabsan doontaa insha Allah inta sanadku dhamaanba kulli si uma dhacaysa. waxaan rajaynaynaa in hawlaha bilaama laakiin gobonimada xumada iyo hadal xumada iyo maxay ahayd arrimahaas arrimo dhaqan dadka u ama gobonimada ma ahmabta. ugu dambeyntii wasiir fariinta ugu dambeysay aad la wadaagaysa bulshada reer Puntland maxay reer Puntland intoo kale hadalkii intaas uu yahay laakiin gobolada Soomaaliya saaga aan baan xoogaa ku oranaya hal isceliyo emotionska iyo xamaasadda iyo maxay ahayd wax badan matalan horena waa soo maray cagta hal soo dhigo muxuu ahaa amaankana hal ilaaliyo waa hadal yar oo kooban dhinacaas waxaan rajaynayaa inay fahmi doonaan meesha waxaan u jeedo. cagta hal loo dhigo yaan xamaasad dambe oo aan waxba tarin yaan maxay ahayd ficilo lagu qaadin hal isla fahmo danta. hadalka ma waxaad ula jeedaa wararka soo baxay la leeyahay maamul baa loo sameynayaa Soomaaliya sanadkan cid adduunka cid maamul samaysa ma jirto dadku waxooda iyaga samaysta haddii ay rabaan reer maxay tahay Soomaaliya sanadkan haddii rabaan iyagu way iyaga oranaya anaga rabna oo taa idin u diidi mayso beelkaas way la iman karaa laakiin cid u samayn kartaa ma jirto. dowladda dhaxana walaha awood ma laha international awood ma laha koox yar oo maxay dibad joogtana awood ma laha. arrimahaas waxaan jeclahay anigaan ku dheeraanayn waliba aan u diidaynin inay maxay dantooda ka hadlaan in cagta ay u dhigaan oo aan maxay mar dambe lagaga faa'iideysanin xamaasad.